isboortiska waa furaha isdhexgalka bulshada, waa dhaliyaha nabadda, waa isfahansiyaha dhalinyarada, waa fogeeyaha colaadda iyo dhibaatada. waxaana la sheegaa in dhalinyarada ama dadka ku saaxiiba isboortiska ay aad isaga dhow yihiin dadka kale ee ku saaxiiba waxyaabaha kale. xusuus ballaaran ayay isu hayaan bahda isboortiska, maankoodana ma kala fogaado. waxaana la xusuusan yahay magaca iyo muunadda laga dhexli karo isboortiska qaybihiisa kala duwan. bal xusuuso adigaba magaca iyo muunadda ummadda Soomaaliyeed uu soo hoyay Cabdi Bile Cabdi oo ahaa orodyahan Soomaaliyeed oo bilad sharaf ku guuleystay waayadii barisamaadkii. ilaa iyo maanta lama hayo geyga Soomaaliya ciyaaryahan ama orodyahan u dhigma Cabdi Bile. muqdisho bari waxa ay caan ku ahayd isboortis qaybo kala duwan leh. waxaa ka dhisnaa naadiyo magac leh. waxa ay ka qaybgeli jirtay tartanka caasimadaha, tartanka qaaradda Afrika iyo tartamo fara badan oo waaweyn. waxaa la xusuusan yahay in tartamada Afrika qaybo ka mid ah lagu ciyaari jiray garoonkii dadnaa ee kubadda cagta Stadium Muqdisho oo maanta ah goob marka aad aragto aad ka naxayso muuqaal ahaan iyo weliba deegaan ahaan. waa goob laga barakacay, ama si kale haddaan u niraahno waa xarun ay degan yihiin ciidamo. waxaa xilli deganaa ciidamada Itoobiya. burbur ba'anna waa uu ka muuqdaa garoonka. iyadoo arrimahaasi ay dhanay jiraan ayaa Muqdisho iminka waxaa ka socda tartankii 39aad ee horyaalka Soomaaliya. waxaana toddobaadkan door bidnay in barnaamijka Soomaalida maanta aan idinkugu soo bandhigno muuqaal muujinaya hanaan socodka tartankaasi. halka ay indhihiinu hayaan ee dhalinyarada faraha badan ay kubadda ku ciyaarayso, kuwa kalena ay daawanayaan, waa garoon macmala oo laga sameeyay dhabarka dambe ee jaamacaddii ummadda. dhanka kale marka laga eego garoonka waa fariisiin ay ciidamada Burundi degan yihiin. si kale marka loo qoraansadana waxa uu ku dhow yahay kulliyadda Jaalasiyaad oo furun kale oo ciidamadu ay degan yihiin. arrimahaasi oo dhan iyadoo ay jiraan, dhalinyaradu kama niyad jabin inay kubadda ciyaaraan. galab walba waxaa halkaasi u daawasho taga dhalinyaro fara badan. Muqdisho iyo agaheedana waa la isaga kala yimaadaa. xiiso badan ayay u hayaan dadka isboortiska daawashadiisa. marka aad aragto muuqaalkan iminkaba indhahaagu ay hayaan, waxaa niyadaada ka baxaya in Muqdisho laga barakacay, isla markaana dadkeeda dagaaladii ay saameeyeen. waayo muuqaalka iminkaba indhihiina ay hayaan waa mid muujinaya dhalinyaro fara badan oo iyagu u haylan daawashada isboortiska ama ciyaarta kubadda cagta. kuwa kale oo jeclaan lahaa inay soo gaaraan halkan ayaa jira oo ku xaniban deegaano ka tirsan magaalada oo aan laga soo gudbi karin sabab dagaalada la xiriirta. sii socoshada ciyaaraha ceenkan oo kalena dad badan waxa ay rumaysan yihiin in ay wax badan ka tiri doonto isdhexgalka bulshada iyo nabadda. waayo isboortiska waa aalad horumarka iyo nabadda horseedkeeda qayb wanaagsan ka ciyaarta. dhalinyarada kubadda ciyaaraysa niyad ahaan waa kuwa dhisan, kuwa ayaa jecel in ay heer ka gaaraan. Soomaaliya inkastoo aanay guulo waaweyn gaarin, haddana waxa ay ka qayb gashaa tartamada kubadda cagta ee qaaradda Afrika ee Sakaafa. waxaase xilliyo kala duwan ay la kulantay guul darro, walow sanadihii dambe ay u muuqatay mid soo kabanaysa, dardar ciyaareedna muujinaysa, walow guul aanu isha saarin. haddii tartamada ceenkan oo kale ah ay sii socdaan, dhalinyarada niyadooda la dhiso, waxaa la saadaalinayaa in isboortiska Soomaaliya horumar wanaagsan uu gaari karo. inkastoo Muqdisho uu ka socdo tartankan xasaasiyadda wanaagsan leh, ayaa haddana dhanka kale waxaa magaalada ku nool laacibiin hore oo gaboobay, isla markaana war iyo wacaal aan u haynin hanaan socodka ciyaartan Muqdisho iminka ka socota. Malay ayaa ka mid ah dadkii hore ee ku caanbaxay ciyaarta kubadda cagta ee Muqdisho iminka ku sugan.
keyd miidiya ayaa la sheekaysatay xaaladiisa nololeedna wax ka weydiisay. hore waxaan qabay kubad cagta ciyaare isboortiga dhahay ilaa isboortiga kadib isboortiga waa marka dambe waxa gacanka baxay xilligii maxamed siyaad oo baxay okay Soomaalida maxaa u maqleed Soomaalida waxa baaqla aniga hadda nin ninkii saas ciyaar jiray dad macaawina iskarawaad aniga tabar milli hada min shaqay kore waa ina garab lisiya ninkaasna ciyaartooy ay jiri wadanku haddaba daawade niyadaadu ma ku haysay Muqdisho oo maalin walba aad ka maqashid wararka naxdinta leh ee dhimashada dhaawaca iyo barakacaba la xiriira in xilligan sports caynkan oo kala ah uu ka jiri karo ma islahayd dhalinyaro intan la eg oo Muqdisho ku nool ayaa u bareeraysa daawashada kubadda cagta ma aaminsaneed in niyadda dhalinyarada Soomaaliyeed ee Muqdisho ku nool ay gaarsiisan tahay heerkan isla markaana ay niyad u hayaan isdhexgalka iyo nabadeynta bulshada sideed aaminsan tahay in lagu kobcin karo fikirka dhalinyarada ee la xiriira horumarinta isdhexgalka iyo isfahamka bulshada fadlan aragtidaada noogu soo dir Facebook iyo YouTube